بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda Soomaaliyeed oo ku nool caalamka dalka iyo dibadda meesha joogaan ha noqotay. waxaan rabaa inaan u sheego Xasan Sheekh Maxamuud waagi la doortay oo loo doortay in uu ummadda Soomaaliyeed madaxweyne u noqdo xabadii lagu bilaabay gobolka Shabeellada Hoose ilaa ay hadda way socotaa. marka waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan dalka iyo dibadda Xasan Sheekh Maxamuud in uu matali karinin shacabka Soomaaliyeed uu yahay gudoomiyaha hawiyaha in uu noqday in uusan madaxweyne ahayn sababtoo ah xabadii ka bilaabatay number 50 iyo marka ilaa ay maanta way socotaa. waa madaxweyne hawiye, waa madaxweyne gudoomiyaha hawiyaha, ma aha madaxweyne Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed mas'uul kama noqon karo. marka waxa waaye in dadkii dawladii matalayay oo Somali National Army ahaa ay yihiin dad hal beel oo hawiye ah ay hubkii dawladii ee Amisom siisay in ay soo qaateen dad masaakiin ah oo maata ah oo guryahoodii lagu garaacayo habeen walba xabadu ku socoto ee la barakiciyay. marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan Soomaali marxalado badan ayay soo martay laakiin maanta tii ugu darneed ayaa ka socota sababtoo ah wixii ka dhacay Hargeysa 1988 oo Hargeysa loo gumaaday ayaa maantana gumaad lagu hayaa ee gobolka Shabeellada Hoose. hawiyo dhan iyo hal beel oo beel biyamaal la dhaho ayay hawiyihii ku duuleen si ay gobolka Shabeellada Hoose ay maamul ugu dhigtaan, ay dhaqaalaha u qaataan iyo beeraha dadka dadow alaab. waxaan idin sheegayaa dhulal baa leedihiin, Guruceel baa leedihiin, Dhusmareeb baa leedihiin, dhululkiina aada. dhululkan dad baa iska leh, dad baa u soo tabcay, dad baa u soo dhintay, taariikh bay ku leeyihiin. inaan u sheego madaxweynaha Jubbaland ee Kismaayo Axmed Maxamed Islaan waxaan dhahayaa maanta number 50 iyo marka hadii la qabsado ee gobolka Shabeellada Hoose hadii la qabsado birina hawiye aday ku imaanayaan Kismaayo lagaala wareegaya. marka sidaas oo la soco Axmed Maxamed Islaan birina Kismaayo loo soo socda. marka waxaan kaloo rabaa inaan u sheego madaxweynaha nuuna madow wataan shalay isla jirnay. marka xaalku sidoo yahay waa u jeedaa in dagaal hawiyihi ee isa soo gaashaan buurteen. marka annako walaalaha ah wataan isla jirnay see wax wada. marka waxaan u sheegayaa kale odayaasha halkan ka hadla TV-ga intay soo istaageen isku sheegay hawagedirta iimaankooda kulli garamay hawagedirku waqtiga iimaan yeesheen. waxaan u sheegayaa xildhibaanada beesha xildhibaan Cabdalla Booska iyo xildhibaan Abshirow hadday ka yimaadeen looyi cadde iyo hadday ka yimaadeen Hargeysa iyo Buurane iyo dhulka gobolka Shabeellada Hoose dad waxaa iska leh dad malaha habagedir iyo abgaal iyo hawiye malaha. marka waxaan idin sheegayaa waa run geeridu waxay dhibaysaa qofka ku yimaado dhoofka. marka waxbaha baqin, waxbana ha hanjabin. dhulka waa dhul maxaa la dhahaa direed iyaga iska leh. marka waxaan idin sheegayaa Guruceel iyo Dhulsumareeb iyo mudugtiina aada. marka waxaan u sheegayaa madaxweynaha Ismaaciil Cumar